kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa xiisada Suudaan iyo Itoobiya u dhaxaysa gaar ahaan deegaanada ay ku muransan yihiin muddooyinkii u dambeeyay waxaan idin la wadaagaynaa xogaha iyo macluumaadka ku aadan dagaalada goosgooska ee ka socda gobolka Al-Fashaaqa magaalada deegaanka Al-Fashaaqa oo ah deegaan beeraley ah oo in badan oo kamid ah Suudaan ay gacanta ku dhigtay kadib markii ay dagaal halkaasi ay ku qaaday deegaanadan oo horey loogu muransanaa haddaba iyadoo xiisadu taagan tahay Suudaan waxa ay sameysay dadaallad diblomaasiyadeed iyadoo oo wufuud kala duwan u dirtay qaar kamid ah dalalka dariska shalay Masar bay gaadhay warar ayaa soo baxaya ku aadan in Masar ciidamo ay ku soo daabushay gudaha Suudaan Itoobiya horey waxay ugu eedeysay Masar si dadbanaysto saaba in iyadu ay dibadda ka riixayso Suudaan oo ay ka dambayso qulqulatooyinka iyo xasradaha ka taagan deegaanada Itoobiya iyo Suudaan ay ku muransan yihiin xogahaasi iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee halka lagu muransan yahay waxyaabaha ka cusub ayaan qodobkan ku eegaynaa jaamac galad ayaan wax ka weydiin doonaa inta uu maartay qodobkan socdo jaamac soo dhaw maxaa ugu dambeeyay xiisadii Suudaan iyo Itoobiya بسم الله الرحمن الرحيم ان مركلان سلام يا gudahan ba umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan salaamullaahi alaykum baan leeyahay in saaxiibkii ka soo marka la fiiriyo sida hadda ay wax u socdaan waxaad moodaa yani dagaalkii inuu wax kale u noqday ha ya wax kale noqday dawladda dalka Suudaan waxay bilowday maaragtay dadaallo horta diblomaasiya markii ay ujeedadii ay lahayd ay gaadhay inteedii badnayd 80 ama 90 boqolkiiba Itoobiyana ay dagaal u soo xaydxaydatay iyo Eritrea iyaduna waxay bilowday dhinaca ciidanka horeyba way u sii diyaarsatay dadaal diblomaasi ah bilowday waxa dawladda dalkaas Suudaan shalay iyo daraad ay u dirtay dalalka dariska iyo caalamkaba wufuudi ugu ballaadhnayd ee maxaan ku iraahdaa to booqanaysa dalalka horey waxaynu ogeyn Eritrea in ay isku fahmi waayeen in labadii maalmood la soo dhaafay in maxaan ku iraahdaa ay wufuud badan oo Suudaanisa yaa meel kala duwan gaadhay muhiimadu waxa ay tahay in wafdigii yani ugu cuslaa uu tagay dalka Masar magaalada Qaahira oo la kulmay maxaan ku iraahdaa waan jeclay waliba inuu hogaaminayay madaxa maamulka ku meel gaarka ku xigeenkiisa ama madaxweyne ku xigeenka dalka Suudaan oo maxaan ku iraahdaa qoladan rayidka ka tirsan in uu maaragtay meesha tagay iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay tageen wasiirada kale oo koox ayagana meelaha loo kala diray waxa marka halkaasi ay wufuud gudbinayaan fariinta dalka iyo dadka Suudaan ama dawladda Suudaan iyo dadka reer Suudaan fariintooda ay gudbinayaan oo ah mid haddana maartay ay ku dabaqayaan yani juqraafiga ama maab dhuleedka ama maabka maartay qalfoof dhuleedka dalka Suudaan oo horey uga tirsanaa deegaamadan hadda muranku uu ka taagan yahay ay horey uga tirsanaayeen say dooniba ha noqoto dawladda Suudaan talaabooyinka ay qaaday oo dhan waxaad moodaa hadda kuwa maaragtay midho dhal ah oo inta badan la soo dhaweynayo dhinaca maaragtay siyaasadda marka la fiiriyo halka dawladda Itoobiya ayna ilaa iyo hadda wax diblomaasiyad ah oo ay ku dhaqaaqday aysan jirin sababtoo ah diblomaasiyadda dawladda Itoobiya iyada hore isaga soo xidhay albaabada xilliga dagaalka ha cid walba dhagaha faraha ka gashatay haday Afrika ahaan lahayd haday midowga Afrika ahaan lahayd hadii ay dawladda ahaan lahayd gaar sida Uganda iyo Kenya oo kale iyo dadaal u galay iyo arinta maaragtay in bal la qaboojiyo midowga Afrika oo wax kasta sameeyay urur goboleedka IGAD qaramada midoobay wixii yani maaragtay ururadii dawliga ahaa oo dhan hay'adihii gargaarka cid walba oo isku dayday maxaan ku dhahay in ay arinta maaragtay bal yar xogaa la yar dajiyo Itoobiya ka furaysatay sababtoo wax weyn iyo markaa haysatay oo waxa u muuqatay guul ballaaran de guushiina way gaadhay marka guushii de mar haday gaadhay waxaad moodaa dalalkii shalay iyadu ay ku adkaystay maanta waji ay la hortagto oo ay dhahdo kaalaya maanta Suudaan nooga heliya ama maaragtay tu nagu garab istaaga dagaalkan Suudaan iyo Masar ay soo yar maaragtay dabada ka riixayaan ina maxaan rabnaa lagu caawiyo waa adag tahay sababtoo ah shalay dalkii aad ixtiraami weyday markuu inta isu ka soo bandhigay uu yiri waxaan rabnaa arintan anoo dawladda hibla ah in aad nagu qiimeysaan oo aan dhex gallo la yiri ma walaal isa
Masar la yiri maanta af loola taga lama garanayo marka dawladda Suudaan baa waxaad moodaa marka in ay ka faa'iideysatay fursado hore ay u dayacday Itoobiya ama ba fursado hore uga lumay Itoobiya oo dalal badan oo maanta ayna Itoobiya maaragtay galaan siyaasadeed u yeelan karin yay maaragtay Suudaan yay ka faa'iideysatay arrimahaas diblomaasiyadda marka waxaad moodaa tallaabooyin waaweyn oo wax ku oola durba inay ka gaadhay dawladda Suudaan Masar maxay isla gaadheen maxaa tallaabo oo Masar ay hore u qaaday oo dhanka Suudaan horta sida dawladda Itoobiya ay ku doodaysa Masar waa dalka ka dambeeya dagaalkan ee isagu horinaya Suudaan dawladda ka riixay ma daba ka riixba ma ahaba Itoobiya waxay aaminsan tahay waxa la dagaalamaya inuu Masar yahay oo aysan Suudaan baahin waa Masar yani Suudaan baa loo adeegsanaya Masar oo Suudaan iska soo dhigtay وأصير أي كده يعني يعني مرت السياسيين إثيوبيان كا مصر أو السودان إسكسر دكتور شارك السودان صار حرتي يكون معركة يجوا شيء يعني لكن مصر توس بحط دجالك وقش يلا نرك هذه قبته واتاي وسير عدينا معلومات ولي أنا وحال عدينا الله هيا مصر هري عيدا ما وقت شوقي عيدا ما كان وين كانتي ها إسكاشي ولا سميني ها إن محاكل دولتوسكي غرغر هذا النيل كا لوجو ما قدري عيدا كيس سمي وين شوقين كوا عصب على لوجو صوت دري شيء ده هري أديال كان الله سوق عليه سيدا الشيء oo waxay maanta safka dagaalka kula jiraan oo dhufayska kula jiraan ciidankii Masaaridu ciidankii dalka Suudaan marka Suudaan hore u soconaana oo garab taagan maya waa anaga ka horeyno way ma aha garab istaag marka soo isma oran karo waa iclaamin dagaal de ha Suudaanna waxay sheegatay inay leedahay Benishangul meesha la yiraahdo gobolka ismaamulka Benishangul baa anaga la haydeen gobolka Benishangul iyo Gumus kuma jiro Benishangul markii la yiraahdo waa dalka Suudaan bilaad hadda ka hor meel baa naga bariyay dhaheen oo yiri ومحن كل هذا وحن ربا ماشن حوجا باهي بدن بنهايسه إنه يدك بيركة تبعنا يدك ير بيركة تبعنا بنربناه النسيون ولا هذي بريء يكون بحنا ينقل سودانيين ويبقى في عينهم به وليها كل بقولوا إنها بريدو هذي على الشارع عسليين لكن واحد ينقل كان عنا عليه ومحن كل هذا يتحدى كهر يعني كوري تشينه ونسينا بقركي من اللي خليه تري له بقره إن وحنا الجاري حلقي أن دبسوا عشان لهم محن كل هذا قبل كاسلية بنشانقل جمس بنشانقل جمس اللي ده وادد معركتات أفعال ويكون الله وادد لكن مدمدو معركتي مايا بنشانقل وادد معركتات والسودانيين عالية دي جنبالي لبسكيز وحلي واحد أنا كونفور السودان بابا قطر سنة ها جنبالها كريمها مع بكون جمس كنفتر كودو ويوم هالكاس كتير سنين مركب واحد دوني بهان نقطة إن واحد مدة حصده إن السيل بتشبار ميسو إن السودان عايشة قبل كبنشانقول واحد هذول كبيحرانك وكي يلا أنا قاله محن كودا هذا هذا مدحوني السودان مركب وده وريد البرنا قاسي مكان سو مدحوني دلك السودان كانوا وانسواق بسنة هنا وهذا تاجين يهاي أول هرم يلا وما صعنوا هموجته كل كلام نجم مكان أو الفشقة قريب كوه وانسيس عن الناب وهذا تاجين يهاي أول هرم واحد يعني ماركت إن واتشوجنا دول كنجي حد مدة إن دبوا وحسوستين وحكرا أو حسوسين مدن إن السودان أي جبيهام بحدي هودي دقمة الفشقة واحد ديارهم مري كرتاين تشين تتليبا كدي مركي مارين كهر مركب إثيوبيا الجحرة ما واحد كستبا حتى شنبروهم دول كران واته سواء كران سواء ديارات هليكوبترة أو ديارات مارين كي وتجي مدحونها دلكا السودان برهان ها وتجي ديارات إثيوبيانا يعيقون هودا سواء قلي ديارتي ماشي أضو ديارات بصور عضي أي السودان لا ها وهليكوبترة لا يهد صابته يقول عضي عدسن رسمي وشاكتي ما جرت لكن حجب حاجة الشيء إن ديارات داسي محن كل هذا ديارات هن دجالك إثيوبيانكو أي محن كل هذا عجيل جريان كدبنا يلا عرّيس أي جد عسكتي سيدوني بهن نقطة إن الدولة السودان وحي حد هودي دقمة الفشقة سمر دنبابا أنا ديارات دنبو إثيوبيا لا ده أنا أسو ها أنا أقصو حد قدبين وحلا على يوحي هودا أسوق قالنا هل كذا يلقو مارتي يلقو بربرين يا وحي على قري سام كي مارتي سام إيه لبن ميال اللي هذا واحد اللي هذا نوع عاصا يصود دابولين ومقالة لقى أركي دي أكو ديارتها عايش صلاة واحد دوني بهن نقطه وحماش المركة كم موقتها دقالك إنه وجه كلايش دولة دي اللي هي تري إريتريا درات بوحي عارسي
وفتي السودان ما سفيركي السودان هاشم ناصر ها ناصر شهاب هشام وحنا عسل إلى هذا محل له عيدي محل له عيدي waxaad ku faraxsanaydeen waxaad jeclaydeen TPLF inay guulaysato oo aan laga adkaanin iyo dawladda Masar jeclayd sida daraadeed maxaan ku idhaahdaa soco wal caydi hadda ogow mashaariicaha dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ee ugu iyo beeraha saddexda maaragtay hay-adood mashaariicdooda dawladda Masar baa gacanta ku haysay dalka Eritrea laga fuliyo ha beeraha haday noqoto iyo maxaan ku idhaahdaa waxbarashada iyo caafimaadka dhammaan isbitaalada dalka Eritrea oo dhan waxa gacanta ku hayay militariga dalka Masar ama ciidanka dalka Masar wasaaradda qaybtooda waxdooda caafimaadka iyaga qalabiyay iyaga dhisay iyaga waxay geeyeen wax walba soo agara marka tiina waa cayriyeen aad marka waxa weeye waxaad moodaa dagaalku inaan hadda la isu gabanaynin dawladda Suudaan waxay kala ku sheegtay in dagaalkan ay ku jiraan maxaan ku idhaahdaa nimanka la yiraahdo Imaaratul Arab oo nimankii dhulka la gooyay ee TPLF diyaaradihii droneska ahaa iyo qalabkii maxaan ku idhaahdaa isgaarsiinta ee basaasnimada ee maxaan ku idhaahdaa nimankan TPLF qof walba godkii uu ku jiray ka soo saaray qalabkii baa haysanaa Suudaan waa ta qeyladaan afka ku dhufatay meel walba durba tilwaan ka dacweynayna Imaaraadka waa inuu ka baxa meesha Masar marka inay soo degdegto waxa keenaya arintan maaragtay Imaaraadka keenaya sababtoo ah Masar waa dalka kaliya ee ugu awooda badan bariga dhexe waxaan maaragtay oo dhan afka qaban karta oo maxaan ku idhaahdaa diyaarad drones oo ay leedahay Imaaratul Arab ma dhaqaaqayso maxaan ku idhaahdaa adeegan basaasiinta ee maxaan ku idhaahdaa software-dadan maxaan ku idhaahdaa meel walba la gelinayo ee droneska lagu hagayo iyaguna waxa weeyaan ma shaqeynayo oo iyagana waa la xakameeyay marka waxaad moodaa awood badan oo ay ku taamaysay Itoobiya durba in maaragtay ka hortag loo sameeyay oo soo gelitaanka Masar baa wax walba yaa maaragtay meesha ka saaraya marka bal waynu arkaynaa meesha isku biyo hadda se waa la isu bareeray laakiin waxa badaho dhacday ma ay jirto oo minaha dagaal weyn baan jirin dagaalka ugu weyn baa ka dhici doona meesha waata aad oo maasan tahay waxa u reereebanaysaa adigu Suudaan marka waxay samaysay dadaallada diblomaasiyadeed koonfur Suudaan bay wafdi u dirtay Eritrea baa ku dirtay Masar bay u dirtay Sacuudiga xitaa u dirtay leeyahay Algeria xitaa u dirtay dhulkii ay qabsatay Itoobiya ay ka baxal hayd Suudaanay mooye Suudaan waxay sheegatay dhulka Itoobiya gudaheeda Itoobiyana waxa muuqata inay doonayso dhulkii markii hore laga qabsaday kana sheeganay iska wada inay soo ceshato see marka wax ku suuroobi doona Masar Suudaanna waxay rabtaa dhulka inay sii haysato oo waliba ku iga maqan bay leedahay tanna kii aad ku fadhiday Suudaan ka cawilay Itoobiya see marka wax ku suuroobaya xalku waa dagaal wax kale maaha wax kale oo suuroobaya yaan jirin ba hadaan meesha dagaal laga rabin ciidamada maxaan ku idhaahdaa Masar inta la soo daabulo lagama keeneen xuduudda Suudaan lama keeneen inta laga soo qaaday Iskandariya iyo maxaan ku idhaahdaa Ismaaciiliya iyo inta laga soo aruuriyo laga soo daabulo laguma soo daadiyeen xuduudda alqadaarif lama soo dhoobeen meesha waxa weeyaan ujeed Masar waxay rabtaa totally ba Itoobiya inay sakan shawhirin biyo xidhanka oo kolka horena kan shalaan lagu rido marka dambana inta la burburiyo oo dhulka la dhigo macabahalka iyo maxaan ku idhaahdaa biyo xidhankaba Itoobiyana awoodeedii way qanta biyo xidhankiina la burburiyo marka in yaro loo talinayo inay noqoto la tartiib u jooga meesha aad degantihiin soo garan Masar taasaa ka go'an mar rabta Masar cudud Itoobiya leedahay oo sii taagnaata oo halis ku noqota qulqulka biyaha webiga Niil meel kale oo maxaan ku idhaahdaa deegaanka Axmaarada meelaheedana waatay wax ka faadfaadeen maalin dhaweyto ay dhahayaan waxa ku baxaysa 120 milyan baa ku baxaysa oo dollar oo waa meel hor la sii faadfaadayaan hadii marka waxan ay sii socdaan meel walba marka dambe biyaha way xidhi Itoobiya hal dhibic ah oo biyo ah ma ogolaanayso 10 sano ee soo socda hadii fursadan maxaan ku idhaahdaa ay ku guuleysato oo inta ay maxaan ku idhaahdaa wax walba ay hirgeli waayaan Masar ay ku guul dareysato inay baabi'iso biyo xidhanka in maxaan ku idhaahdaa awoodda Itoobiya la weeqo ay ku guul dareysato oo Itoobiya ay sidan sii ahaato 10 sano kadib Masar ma helayso xabad biyo Masarna taasi marka inta Itoobiya ay jeexsata weyn iska gaadha aad oo maasanta Itoobiya marna sidan bay iska ahaanaysaa Itoobiya marna ma jiracsanaysaa marna ma adkaanaysaa walaad sidan bay ahayd qolfoofka oo is huwan bay ahayd yaani waxa moogtahay
nimankii baa meesha soo dhigay moogtahay Tigreegi shiniduna markay iskhilaaftaa godkeeda la helaa baa la yidhi moogtahay marka waxaa weeye hadda meeshan hadda Itoobiyaanku waxyaalaha ugu badan ay ka walaacsan yihiin baa waxaa in TPLF waxaa leeyahay maleeshiyad waxay ku aruursanaysaa meesha la yiraahdo gudaha dalka Suudaan oo marka uu leeyahay taliyaha Tasfaaya Ayalow sargaalkan u hadlay ciidanka militariga Itoobiya koox budcadaha lagu aruurinaya maxaan ku yiraahdaa gudaha dalka Suudaan halkaas aan tageynaa u soconaa markuu leeyahay yaani ma aha wuxuu iska leeyahay waa xog uu hayo weeyaan in ciidan badan iyo saraakiil iyo mas'uuliyiin iyo hawlwadeenno iyo kaadirkii TPLF in saldhigyo loo sameeyay oo halka lagu aruurinayo bugtadoodii iyo dhaawacoodii lagu daweynayo kadib markii maartay la daweeyana la soo hawlgelinayo inta la soo hubeeyo warigeed ma nasanaysa Itoobiyada marka waxyaalahaas oo dhan bay ogyihiin laakiin waxaas waxa ka muhiimsan oo Masar iyo waxaas uga muhiimsan biyo xidheenkan Masar waxa ka go'an biyo xidheenkan inuuna shaqaynin sababtoo ah hadduu shaqeeyo 100 milyan oo masaari ah iyo yaa ku tiirsan oo 85 milyan dad ah oo Masri ah yaa ku tiirsan dadkaasi marka xagee aadi هذين الدولة دفاعا ويعني بيها حرنك النيل نكي فرق سارة ونكسو الدولي دجال أو إعلامي دالك مصر تاسي كده أنت هاي وخذ الأحمر واحد اللي هذا حلو يجري شريفكم شريفكم خذ أحمر خذ أحمر سوا هاي هل في تاجين ده وهجا قادوا ما سيهاي جامع daawadayaal dhageysiyaal ama daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qodobkaasi aan uga hadlaynay xiisadda Masar iyo Itoobiya iyo waliba maalmihii u dambeysay xadka arrimihii ka taagnaa oo aad moodid haatan in xiriirka Itoobiya iyo Masar anaadaas xiriirka Itoobiya iyo Suudaan uu meeshii ugu xumayd oo gaaray tan kulan dambe xiriirka Itoobiya iyo Suudaan uu meeshii ugu xumayd gaaray ilaa haddana ilaa haatanna lama jiro ama ma jiraan dawlado isku dayaya bal inay soo dhaweeyaan si xal loogu helo xiisadda labada dawladood ee dariska balse waynu ogaan doonaa wixii ka soo kordha iyo macluumaadka arrimahaas la xiriira mar walba waa in la wadaagi doonaa tan kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo